waan idin salaamo dhamaan saaxiibada ku xiran channelkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog iyo xaqiiqooyin ugaar ah filimka caanka ah ee Aatish ka oo kamid ah aflaamta Soomaalidu inta badan aad u xiiseyso inay daawadaan hadda waxaan idin wadaagi doonaa xog ugaar ah filimkaani balse intaan u gudagalin muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa channelka soo biirto oo subscribe saarto haddii muuqaalku cajib gelin hadhow ha iloobin like inoo saarto wixii ayaad qabtana commentiga oo soo wareeb soo dhawaada saaxiibayaal Aatish ama filimkan Aatish waxa uu kamid yahay aflaamta ay Soomaalidu aad ku xiiseyso inay daawadaan filimkan sidoo kale waxa uu kamid yahay aflaamta xilligii shiliimooyinka aadka loo xiiseey jiray marka ay timaado aflaamta dhanka actionka haddaba waxaan eegi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah filimkani Aatish waxa uu soo baxay 17 Juun sanadii 1994 waxa hogaamiyaal buuxa ka wada ah sanjidid adidiya bin rafiina tonton karishma kabuur atul agn hodri kadar khan gulshan karofari sidoo kale shakti kabuur waxa agaasimka ninka lagu magacaabo sanjid gupta markaan eegno filimkan waxa muusigeedu u garaacay muusigiisayaasha caanka ahaa sagaashimiyadii nimanka lagu kala magacaabo Nadimi sidoo kale Jaravan markaan eegno filimkan heesaha inta ugu badan waxaa qoray erayada filimkan heesaha ku wada baxay waxaa la xameeyay sidoo kale qoray ninka lagu magacaabo Amir ka oo kamid ah heesaha qorayaasha ugu weyn ee Bollywood ka soo maray taariikhda markaan eegno fanaaniinta heesaha filimkan ka soo muuqdo waxaa kaga soo muuqday fanaaniintii ugu caansan sagaashimiyadii kuwa kaliyin ama fanaaniintaas waxaa kamid ah kumar gabadha lagu magacaabo alkayagni udin naarayan jooli muqraji sidoo kale waxaa fanaaniinta ka soo muuqday ama heesaha filimkan ku luqay kamid ah ninka lagu magacaabo mukul agarwal ninka loogu yeeray saaxiibayaal markaan eegno filimkan tiyaatarada la saaray filimkani waxaa la saaray tiyaatar gaaraya 210 tiyaatar waxaan lagu qarash gareeyay lacag gaaraya 4 karoor waxa uu keenay ama uu soo xareeyay lacag gaaraysa 6.42 karoor markaan eegno filimkan tirada tikid u goostay waxa lagu sheegaa 11,728,000 oo qof ayaa tikid u goostay tiyaatarada aad si ay u soo daawadaan filimkan saaxiibayaal natiijo ahaan waxa uu noqday filim average ah ama filim guuleystay ama waxa uu kamid yahay aflaamta guuleystay laakiin guushiisu waxay ahayd guul aad u hooseyso waxa uu ku dhawaaday inuu guul dareysto ama below average inuu noqdo saaxiibayaal markaan eegno filimkan xaqiiqooyinka laga diiwan galiyay ilaa dhowr xaqiiqo ayaan ka soo qaadan doonaa xaqiiqada ugu horeysa directorka filimkan ninka lagu yeero sanjay gupta waa filimkiisa ugu horeeyay uu agaasimo ka noqday ama uu director ka noqdo saaxiibayaal xaqiiqooyinka la filimkan laga diiwan galiyay waxa kamid ah waxa leeyahay heesta lagu magacaabo dil ruba waxa asal ahaan laga soo minguuriyay mid kamid ah heesaha uu u luuqay ama uu qaadaan dhahe ninka lagu magacaabo shami kabuur oo ah adeerka ninka lagu magacaabo rishi kabuurki geeriyooday sidoo kale xaqiiqooyinka waxa kamid ah filimkan waxa leeyahay waxaaba muuqaaladiisa inta ugu badan lagu duubay dalka Mauritius iyo sidoo kale magaalada Mumbai xaqiiqooyin kale waxa kamid ah waxa leeyahay filimkani waa filimkii ugu horeeyay oo actor uu ka noqdo jilaaga caanka ah atul agn hodri ama abinash waxa uu taqaano saaxiibayaal xaqiiqooyin kale filimka laga diiwan galiyay waxa kamid ah gabadha lagu magacaabo karishma kabuur marka hore inta aan filimkan loo bandhigin waxa marka hore loo bandhigay gabadha lagu magacaabo Pooja Bhatt oo ah walaasha ka weyn gabadha lagu magacaabo Abad laakiin waa iska diiday filimkan nasiib wanaag waxaan lagu bedelay gabadha lagu magacaabo karishma kabuur saaxiibayaal xaqiiqooyin kale laga diiwan galiyay waxa kamid ah saaxiibayaal waxa leeyahay jilaaga lagu magacaabo Saif Alqan ayaa marka hore loo bandhigay inuu jiro doorka booska atul agn hodri ama binash laakiin sabab aan la shaacin darteed ayuu ku waayay booskaasi saaxiibayaal xaqiiqooyin kale laga diiwan galiyay filimkan waxa kamid ah gabadha lagu magacaabo karishma kabuur sidoo kale rafiina tonton filimkan waa filimkii labaad ee isla sameeyay sanadii 1994 ka hor filimkani waxa isla sanadkaasi loo daawaday ama ay isla sameeyeen waqtigaasi filimka lagu magacaabo andaas abna oo isla 94 soo baxay saaxiibayaal labadaas filim ayayna ka soo wada muuqdeen isla marka la eego sanadii 1994 labadan gabdhood ee kala ah rafiina tonton iyo sidoo kale karishma kabuur saaxiibayaal xaqiiqooyin kale laga diiwan galiyay waxa kamid ah saaxiibayaal waxa leeyahay filimkan muusigeeda ama sakabondaya ahaanta muusigeeda lagu soo qaatay يعني موسيقى سكبوندا أنت ويرسو حلا يرادا يعني قفك مركو يعني وربحنتانو كلا هذا مركي موسيقى خاص إيه يرسو تاس أيها سكبوندا ليرا يعني موسيقين كسكبوندا ده أنت وبعد موسيقى فيلم كلو سوا دقاتي وحلا جسوا من جوريه فيلم كهوليوود كا لو مقعو ترميناتور خيبتي سلبات أيها جسوا من جوريه موسيقى أنت وبعد نهسها أما موسيقى كودا بحي مركي تماذا مركي أكشن سمينا أما سعد كوكلي سمينا يعني أنت وبعد سجدوا دي سدوكلي أطول أجن هودري ama andahe adidiya banjoli saaxiibayaal xaqiiqada ugu dambeysay aan idinkala wadaagi doona filimkan waxa weeyaan waxa leeyahay filimkan waa mid kamid ah aflaamta lagu muujiyay saaxiibtinimada ama ay ku muujiyeen jirayaasha kala sanjeedid iyo sidoo kale adidiya banjoli ama indhabalil waxaana nolosha dhabta la sheegay in sida labadan shakhsi aan dhahay inay yihiin laba saaxiibo aad iskugu dhow ama saaxiibo aad iskugu dhow in ay yihiin labadan jilaa ayaan iskala soo muuqda aflaam ay kamid yihiin Aatish
baaji oo sanadii 2000 la daawaday iyo sidoo kale filimkii caanka ah ee musaafir ka oo hogaamiyaashka wada ay sanjid adidiya banjoli sidoo kale in el kabur aan dhahay saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa saaxiibayaal xogtii xaqiiqooyinka aan kala wadaagay filimka caanka ah ee Aatish ka oo kamid ah aflaamta ay Soomaalidu aad ku xiiso daawashadiisa fadlan haddii aad ka hesho muuqaalkeena like inoo saar haddii aad janaalka cusub taana subscribe inoo saar wixii ra'yi aad qabtana comment-ka hoos inoogu reeb siina share gareeyo la wadaaga asxaabtaada waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena